صدق هذا من أول بنجوكتي وذيك تقبلوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا ميل البيتات جوكتين ودقبلو كبلو فارح ولا الكيس معو كيكيرا بشير بالله متانا ينحس قرو سعيب كيس قرشو درس كيس كنا الله وراونا قرسيكوسا هاجا بكاجا لكتي مع الشورية بناوين شنطابق. سود هذا سيشير قرية ودقبلو ما انتو وانا هدلينا ما شاء الله عبد الكريم محمد وكسلامية. سود هذا خيارت ميل البيتات جوكتين ما تقول يا نوسو هيتي قلوينكي نبديد كاها ما صلاة وهو قاميني وحي مرسية ما انت كدكتيري كليهين مقالة ودوين كيدي بالحري بارلمان كيبا إيمان ويني وحالي يرنين داد قاضي حنبع عسكيبي سومالي هوري وقومه ماضي موقتاين arrintu dhinaca kale u bedeleen waa nabadiid horey baan uga hadlaynay waad maqlayseen maanta waad arkayseen waxay ku leeyihiin qaar baa wax saxiixi waaye lacag baa baarlamaanka la hortaagnaa dara siyaasadeed ayaga oo wato ayay rabaan inay jaraajar ka dhigtaan muwaadinka Soomaaliyeed ay Soomaalidu dhan ka wada xuntahay waxay u socdaana anagu horey baan halkan uga sheegnay oo niri waxa ay rabaan waxa weeyaan inay dawladdan ra'iisul wasaare khayre ay khadka kala baxaan bay rabaan fadlan soo dhawaada sii gudbiya sii sheer garay ma sha Allah waxay rabaan inay ra'iisul wasaare khayre iyo xukuumadda hadda jirto ayagoo dana siyaasadeed wato inay khad kala baxaan horey baan u sheegay wadaniyiinta Soomaaliya iyo qof dadka muwaadiniinta Soomaaliya Soomaaliga dhaladka wadankiisa ma burburiyo calankiisana ma gubo calankiisana kuma istaago fadlan soo dhawaada sii sheer gareeya sii gudbiya shakhsi iyo qaranka Soomaaliya waa kala weeyeen shakhsi iyo qaranka Soomaaliya aad bay u kala weeyeen sababta macnaha Mahad Salaad iyo Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo dawladda Xasan Sheekh Maxamuud oo hogaaminayay heshiiskii ay galeen ay maanta u inkirayaan horey baan aniga uga sii digay oo u sii sheegay oo salaam ya waas horey baan uga sii digay oo u sii sheegay ummadda Soomaaliyeed waxa weeyaan baan iri arintani jambal iyo game la ciyaaray waa maanta arrin baan idin weydiinayaa Soomaali Maxamed soo dhawaada khiyaarta sharafta leh reerka maanta jaraanjarta laga dhiganaya ninkan muwaadinkan Soomaaliyeed Cabdikariin qalbi dhagax uu ka dhashay waad aragteen baraha bulshada waa daawanayseen way kala jabsan yihiin qaar caalanka Itoobiya wataan qaar caalanka goori way wataan qolo wada arkayseen mudaharaadyadii dhacay isdhaxgalkay sameeyeen kudigood wad u jeedeen isku soo dub ayagay u taala annagu markaan nahay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee caalanka buluuga aaminsan ee magaraysaa dawladoodii dhibka faraha badan ee qaxootiga ku ee caalamkan ku ee waxa dan inoo waxa weeyaan dawladdanada inay shaqeyso shaqadeedana aan laga hor istaagin shaqadeedana aan laga hor imaan soo dhawaada khiyaarta sharafta leh kuwa wanaaga jeclow soo dhawaada wax weeyaan ila khaldan aniga horey baa idinku sheegay qabiil iyo qaran isku meel ma galaan qabiil iyo qaran wallahi oo billaah tallahi inaysan isku meel galin قبيل يقرن اسكو ميل مقلان هداد قبيل كاغا مرول بيتد معدينات وح كور مريسيد والله يبلين هذا العالم كاللجان قادين دقيست ما انت وحا اي كمر مرسيونيان قلوين كي نبديد كاها ما انت وحا كمر مرسيونيان ودادا انا لغا حري ودادا ايانا لغا حري بيقيل كدقان يا سود وادا خيارت شرفت له سي شير قرية سي قطبية سينو عدو وغن حنو ان شاء الله هدو اله يرادو دقيست anigu qarankayga iyo qabiilkayga qarankayga ila weyn anigu qarankayga iyo qabiilkayga qaranka ila weyn wallahi wa billahi oo tallayna beeridii sheegeen qaranka Soomaaliya iyo qabiil
qaranka Soomaaliya igala weyn muwaadin Soomaaliyeed bulaa iga dhigay adduunkan baan ku silcay adduunkan baan ku rafaaday adduunkan baan meel walba ligu takoray wallahi inaysan beenahayn adduunkan baan meel walba aan joogo tuka cambaar la noqday mahad salaadna waad maqlaysana soo xil dawladeed loo dhiibay xil dawladeed soo loo dhiibay oo Soomaaliya dalka Soomaaliya wasiir looga dhigo kitaabka Quraanka lagu dhaarsiiyay waad maqlaysaan wuxuu yiri anigu qabiilkayga iyo reerkaygaan u soo saxiixay buu ku leeyahay maantana asaa campaign gareenayo maantana kuwa cad ee maanta horboodaya baarlamaanka Soomaaliya in xukuumadda la rudo baarlamaanka Soomaaliya anagu waa taageersanahay annaga soo dooranay Soomaali Maxamed inta waraaga jecel oo dhan dhageysta inta waraaga jecel oo dhan nin walba reerkiisa iyo odagiisa oday iyo gabarba lagu soo daray baarlamaanka Soomaaliya in dawladda la xisaabtamo oo la weydiiyo wuxuu dastuurka u ka qabo muwaadinkan Soomaaliyeed maalimahaas axmadiisa ay kacsan tahay waynu soo dhaweynaa laakiin mahad salaad iyo ragga la midka iyo aamin jee Soomaali yiraahdo hawsha ay wadaan inay dawladdanada khad kala baxaan bay rabaan dhageysta idaacadii bay soo fariisteen way barbagaandeenayaan waxay ku leeyihiin lacag baa la hortaagnaa baarlamaanka hortiisa waa been iyo huuhaa weeyaan nin daad qaad waxa la yiri nin daad qaad xumbu cuski baa la yiri fadlan soo dhawaada sii gudbiya sii share gareey idinku maas nin daad qaaday xumbu cuskay baa la yiri waxay ku doodayaan baarlamaanka qaar baa saxiixi waay waxay ku doodayaan baarlamaanka iridiisa lacag la taagnaa waa been weeyaan أوركا كوكا عسريسان سياسة ويدي فهمين رجع حلاشة برلمانك حلاشة ويفهمين أرنتو ويكجاب سده وكسلام يا سلام سودو فضل الويس ومدح برلمانك حلاشة أرنتني ويكجاب سده والله يبلي قرن يا قبيل اسكم ميل مقلو قرن يا قبيل والله وبالله وطلع إنه سنسكم ميل قلن أنكم مواطنين سوماليات بناي قرن كنا قاعد ندقو قبيل نبضيقو قبيل وكان تطبيل لباتنك السنة تطبيل لباتنك السنة أقحوتك وهن ويان والله وبالله تطبيل لباتن السنة يقحوتك وهن وعالم كان الجراي وملوا البيت أذكي يجبي إن قصة حرمة ما أنتنا نشلي نلور تاجنا نجيست نشري نلور تاجنا أنا قبيل أيام وحكوسه صحيحي وقال مذوق إيا قبل هذا نحبن متلي غير كاد دجن محوه هاي إثيوبيا دجنة سوالي قلبي اللي يرهد يعني هشيس لصق قال أسو شاتي دولة فدرال كصوماليا وتو نك نلور يستاجوا يعني نك ما ترى بالدولة إنه دمية نك ما ترى إنه دولة الدمية خدك كربحان مقرر ساي موشكن بنته لو رجيو وحوي ونكي سالينا لها قبيل بان أنا وزير دولي مدحتوية الصومالية وزير دولي الصقو ونكي يري أنا قبيل بان ماشي وتجي روجا جذودان اللورد جاي روجا عسل اللورد جاي ما هين قبيل لو ما تجينا أنا مجعيجا لو جاي أو صومالي أو مواطن صومالي ده دقيست أوكي وحمان ما تيجي مقشينيا أون آدي دي مقشينيا دقيست مدحويني هوري دلك الصوماليا مضارع حفظ الله حسن الشيخ محمود وجيجا لو وريساني فيديو وصوب حواد ركتين او اذا عاد وريسانيس او ما غرانيساي سياسه geeska Afrika laga wareysanay waxa garan waayay anigu waxa doodan maanta taageeray dawladda loogu dhagayay ee ma garanaysaa loo leeyahay oo alif argagixiso ka dhigtay iyo howlo kaliya maanta loogu dawaqay waxa looga hadli waayay dawladdii hore ee federaalka ee jirtay markii madaxweynaha dalka u sareeyay ee Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminay ee idaacada laga wareystay ee la yiri ka war amniga geeska Afrika iyo dalka Soomaaliya ka war lagu yiri ee uu leeyahay waa in la dagaalamaa ubbo iyo ukis ma aqaan waxay tahay uu ku leeyahay umadani kamaysa hadleen umadani macnaha dhagaha umaysan duleelin dhageysta وإذا توصي والله بيننا ما سود هذا فضل سيكون بيا سيشر قرية ومواطنك الصوماليات واللي يجيب حقك وآدمي والله يبلي قبيل الراعو يقرن الراعو قرن أيام وحكون قرية قبيل هذا الراعو ميل علة والله وعش وصدق عش وكسو كل دقائقنا الله أكبر مدحويني حسن الشيخ محمود أيام ذي دقي سيريا وريد توصي أصدق أو كهالله
arrintan maanta taagan ee dowladdanada mooshinka jeesow iyo mahad salaad ee u qabanqaabinayaan rabaan inay khad kala baxaan dhageysta daawada mudane madaxweyne khudbadani waxaad ku celcelisay in horumarka ay saldhig u tahay nabadgelyada sawirka madaxweynaha dalka Soomaaliya ay tahay in laga wada shaqeeyo nabadgelyada dhageysta laakiin xubnihii ugu dambeeyay ee lagu qabtay xadka ee ka tirsanaa ururka nabadiidka ubbo oo Eritrea ka yimid waxay sheegeen in muqdisho isku soo abaabuleen marka arrintan maxaad ka oran lahayd ani ma saxiixin nabadgelyadu waa waxyaabaha laga wada shaqeynayo oo runtii horeyna aad looga balamo dowladda Ethiopia iyo dowladda Soomaaliya waa madaxweyne xafidla dhageysta in laga wada shaqeeyo ka mid tahay hadda kooxahaas waa kooxa maxaan ku yiraahdaa tuuga oo dhuumaanaysanayo oo ilma eegtaa liiriya meelaha ka dusayo oo meelaha muxuu ahay hay'adaha amnigu ay anay joogin ama meelaha qolada kale saaxiibadood ee nabadiidka ah meelaha ay joogaan ama shabaabka ku soo dhex dhuumanayo oo soo marayo ubadde shabaabde ugusde alqaacidade waxaanay cid kasta oo warbeebay baratay dhageysta soo madaxweyne xasan sheekh fadlan soo dhawaada sigdus soo madaxweyne xasan sheekh maxamuud maaha ninka dhahaya وبده وكسده عدو ده كان ده محاويان ما أنا والد مرات بيكون اللي يك هذه وح معنا مد كان ما أنا والد ورما أنا والد مزيدك والد ورما أنا والد مزيدك والد أيدي وديه سود هذا فضل سي شهر قرية سي قطبية وحبي إنه دويان وسياسة اللي سوقي هاي دولة دنا تاجرني يلا الربا أنا قلنا لفشل يلا الربا ونا دولة دنا كعرنا الربا والله يبي قرن يا قبيل سكمل مقال يدقي قرن يا قبيل فضل سود هذا سي شهر قرية قرن يا قبيل سكمل مقال وحي كليه إن حسن الشيخ محمود ومدحوني الدلك الصومالية أولي دولة دي فدرال كلا أقوى صديه وحسن الشيخ محمود جيجيجا وتجي كلان تاني عد والبوي وجيت ورئيسي والله داوضي وردتك ما تغيريسن وردتك ما تكعسن وردتك ما تنجن وريرينيو ورمحي أرنتني واجي أي تاجنين محي أوجه الله محي قربان دولة الندى إني قدوميان فالله سود هذا سيشير قرية أنت وراك جعلوا والله يبلي قبيل قرن كيجان عليك الراعية ماشو دوره هيقول ذو ماشو دوره هيجيو ماشو دوره هيلا هذا قرن يا قبيل كوحوية وقرون ويا وكتغيا أنا جاي الراعة أنا جاي وضو الضيضة ويوفرتا بين ما لكن قرن كيجان كل مرة والله وبالله وتالله ما فيلين والله وبالله وتالله إن أنا فيلين إن يقصوا فرصان دونتو أنا مواد الصومالية لكن حنيا الله صباحي جالس نما موجي دولة ده قرب استاجي هكا عررنا هنيت جبنا إن نيت جبيان بربان دقيستا وركوا ما تكعسروا كوا ما تكعسروا مرة بعد بني كعليا إن هذا الريال السعودي دقيستا إسلام كان ومدحوينه حسن شيخ محمود دولة فدرال مدحوينه كا لكن يوجد دبي لو ابتحادك كتسنا أوركا نبديك أوبا أو إريتريا كيمد waxay sheegeen inay muqdisho isku soo abaabuleen marka arrintan maxaad ka oran lahayd nabadgelyadu waa waxyaabaha laga wada shaqeynayo oo runtii horeyna aad looga balamo dowladda Ethiopia iyo dowladda Soomaaliya ay ka balameen in laga wada shaqeeyo ka mid tahay fadlan soo dhawaada si share gareeyay idinko mas dhageysta madaxweynaha oo ilma eegtaa liiriya meelaha ka dusayo oo meelaha muxuu ahay hay'adaha amnigu ay anay joogin ama meelaha qolada kale saaxiibadood ee nabadiidka ah meelaha ay joogaan ama shabaabka ku soo dhex dhuumanayo oo soo marayo ubadde shabaabde ugusde alqaacidade waxaanay ubadde ukusde cudurde bahalde dowladdanada waxaanay waa jambal loogu talagalo weeyaan wallahi inaan laga leexanin baarlamaan oo kuwa tuugada waan idin sheegaynaa waan idinka hadlaynaa idinka leexan mayno waxaynu taageersannahay baarlamaanka saxda ee runta ee ku dagaalamaya xaqa iyo dastuurka Soomaaliya حق يدستور كالصومالي كود قال لعقت كوة ونقنا ما صلاة هذا لعقت اللي وريجيو مكوا كل السعودية كل الصفن بعد العقل معناه إذا كان يريدها لا تاجن ما تمركات كفش المتين سود وهذا فضل شيء قد بيا سيشر قري ما تمركات كفش المتين وحلتي ما دين دات قاد حنبع سكيبي الصومالي هراي ومهمن
excuse been baad la imaateen wadooyinkii bay nalaga xiray wadooyinkii baa la cross gareeyay wadooyinkii baa inta ka baxay beenaalaad tahay baarlamaankii saxda ah way fahmeen waa la ogaaday daas waa uga aamuseen dowladdan ma dhacayso mana rudayno wallahi bille inaana la rudaynin dowladdani shaqadeeday wadataa dowladdani hawsheeday wadataa dowladdani wixii ummaddana u igmatay yay wadaa waa inaan siyaasadda uga dambeennaa waanuna nin walba siyaasi noqonin dhegaysta wallaahi wabilaahi watallaahi qaran iyo qabiil isku meel ma galaan qaran iyo qabiil isku meel ma galaan sababtoo ah maanta anigu waa igu forortaa waa idinla kaftambiyaa dhegaysta anigu maanta way igu forortaa war ma qabiil baan raacaa mise qaran baan raacaa idinkana intaasoo kale aan ilaga rabaa dhegaysta ma qabiil baan raacaa mise qaran ayaa raacaa anigu qaran baan raacayaa dhegaysta qaran baan raacayaa qabiilkayga waxaa weeyaa qarankaa ka weyn wixii la igu talagalay anigu waa la siiyay xildhibaanadii la igu talagalay waa qaatay wasiiradii la igu talagalay waa qaatay riisan kale dawladeeda ku dumiyay garan maayo dawladnimada ayaa wax walba ka miimsan haye dhagaysta marka yurub waan daawanayna soo dhawaada fadlan sii sheer gareey annagu waa dawaqsanahay aad baa u dawaqsanahay aad u fiiriya kaadii qof baan blog sageliyaa idinkoo maasan soo dhawaada fadlan sii sheer gareeya sii gudbiya meel walbaa joogteen maasha allah dhagaysta qaran iyo qabiil isku meel ma geli karaan maanta hore baa idinku celinaa mahad salaad waa qabiiliista weeyaan dowladdanada qabiil buu u dumin rabaa lacagtan uu wato meel uu ka keenay siyaasiyiintii ku fashilmay dowladda federaalka Soomaaliya ee ku soo fashilmay ee waxba ka soo qaadi waayay ee shacabku nacayn ee shacabka ka hor imaadeen yaa lacagtan u soo dhiibay oo rabo inay shacabka annagoo iyo dowladdanada maasha Allah uu hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayay rabaan inay naga hor keenaan oo inagu diraan oo nacno on ayno oo barbagandiyo waxa loo joogin caalamkan aan u marino dhici maysan laakiin wax dhici doono alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh wax dhici doono ma ah dhagaysta fadlan soo dhawaada sii sheer gareeya sii gudbiya maanta kuwii tugadaha way fashilmeen horay baan u sheegay dhagaysta horay baan u sheegay waxaan halkan ka sheegayo cod dheer ugu dhawaaqay qolooyinkan hor kacay qolooyinka siyaasadda nagu duushanayo darahooda gaarkay wataan darahooda qabiiligay wataan dowladdanada rabaan inay burburiyaan yaanan yeelin aan ka hor imaano maantana shacabkii Soomaaliyeedow runta waad ogaateen runta waad la socotaan dhagaysta excuse waxay ka dhiganayaan golihii baarlamaanka Soomaaliya maanta isu yimid fiiriye waa intira la og yahay ee saxiixaan si kala fadhigaasi uu ansax u noqdo waxa ajandaha la mooshinka la wareegayay maaha in laga doodo dhagaysta baarlamaanka Soomaaliya badidooda waxay rabay in laga doodo muwaadinkan Soomaaliyeed ee la dhiibay dooda inay ku salaysnaataa la rabay si fiican u dhagaysta mahad salaad iyo ragga garab ordayo iyo ragga garab socdo waxay ayagana ay mooshinka hoosta ku wataan xukuumadda aan rundo xukuumadda Khayre aan rundo dhagaysta xukuumadda Khayre dhulka afka loo geliyo de shacabku xaqi bay u jeedaan de shacabku runtii bay ogyihiin shacabku golaha shacabkuna annagayna matalaan golaha shacabku anoo duqbulo bay matalaan shakhsi iyo qabiilkuna waa kala weyn yahay boqol jeer baan halkan ku celcelinay boqol jeer baan sheegayo laha warumaday Soomaaliyeeday hayga cararina dowladdanada taageerno maanta haduu mahad salaad naga raayo mahad salaad maanta haduu naga raayo iyo ragga uu wato iyo ragga siyaasadda ku fashilmay haday maanta naga raayaan dowladdanada dubiyaan waxa weeyaan qaxootiga aan waligeen ahayn fadlan soo dhawaada sii sheer gareey qaxootiga aan waligeen iyo Allahayn aan ahayn intaan meelaha ceyrta tagno oo luqadda no English aan wada dhahno way sognaa qurbaha wada joogna maxaa la isku dhuumanaya ووضع قيرونا مركان أرجنا على وضن كلته وميل كتاجنا ونهوس مرنا وقبله ويلاشي سمستي أن أقص عنون أكتاجنا مركان أرجنا حاوت كجعانت ساو سرطان ووضع قيرونا وحدنا أهوب ودن كيجين وسائل قبيل كدون تهو
ونوقنا الديودن إننا كوبا باسنا هوي كنك يعذو نرجع يعذو قبر يعذو قشانتي يعذو لما تنجره ملا عيد اللي قاعد دتك باهرياش اللي قاسي يوروبيا أمريكا أنت تقنع توكسنا نو إنجليش بالله وادركتين نو إنجليش والقبيل محوي نوتري والقبيل محوطري نو إنجليش عرفتي إذا قاعد جيسية أنا ما شقي سكر لوك بيحبط يقطع أنت كجو أنا عير هالشيء قول له يكمل هالشيء ما شقي سرن فيريا ومن ثالث تيجي وقول ما الجميسي أيام كجرنا وروينا كبحنا وروضك كنا جينا نبض كدقنا ويان ورئنا دقي سنة ما سلاد يكون الله متكتو كذا شاتك قبيل الربط دولة النذ إلى بريان وذاك يسد أبي جول مالمان جاد انتو سوقاتي يكله دولة دوين عيسى دولة دوين ونكرة يا وداركيسين ورميان يلا وحش ورأريكو ما أنت تصالة يدين نقطة دقيست ما ترى تصالة يدين والله وبالله وطالله ما أنت هل يجا تصالة يدينه أنا قويان أنا قول فرماجنا قبيل كيجا معها خيرنا قبيل كيجا معها دولة الصومالية أنا قبيل كوبتها غير مواد الصومالية دولة دي سجع البارة ما أنت نيك كفر ترى أنا قويان دقيست نيكا ماتا كفرتو ماشو كفرتو أنا ويان أنت تقانا وأكتاي دقيست لكن آموشي مايا أو عراري مايا أو دولة ديدنا كفكر مايا دولة ديدنا وكل منايا صوبتو أديودا مكور رفاد صوبتو أديودا مكحوتو كارك صوبتو أديودا ببهدلات كارك صوبتو ميل والبو أنتو go back to country بالله ميل والبو أنتو كنا عالم كان أمريكان سيريسين بانا ماتا دقيست أمريكان سيريسين موادن أمريكان صومالي أمريكان بانا دقيست لكن سؤال لماذا يقول جوش مركا ميل تجو وويلش وده كانوا ده شيء مجرد كعب كل شيء مركا ماذا وارو الصومالي سويس تاجو دينا فيري وحليه مركا قالوا كان ذاتك قعدت كره go back to country ويليه اشتروا وفي الجرينة يا مركا كده بباسبور كذي عدين تيجي الله صباح يا والله أنا أمريكان بالله كسول you are refugee go back to country معناها ضد النوع والريالتي ويان دقيست أنا ودن كيجا شدال بكبح ودن كيجا وقري ودن كيجا وحول باكوستا ودن كيجا أنا كيسينا كور قادو وقبيل كهوس مريا محا يديد ورماها صلاة ما أنت النهر جودو دقيست ما صلاة ما أنت النهر جوجو ويداي ودني مارا سالي مركي باشا كو عدات كلها يعني يقول رير كيجا أسو صحيحة يعني يقول لا دير دلا قبيل كذا الشيء وقال مذوق دقره أن أسو صحيحة أسو شاتي الصومالي ما أنت الدولة النذر روين الدنيا خير ما بحي والله وبالله والله إنه سنبحيني وانارتي وقرب تاجنانينا أنا أنك كفر طبعا قرب استكسن فرما جانا قرب استكسن ورحسن الشيخ محمود بوهنك كل واقع مدحوينها أنك مكان قشنا سولو أبو مدحوينها أنك مكان قشن هبلو بأرجع حسه والرئيس الوزراء أنك ميات كم قشة ومية دقيست وحين نقول ده صحيح أي صحيح الدولة هوري فترة الكسوارية يعني أنه هلك كان بقان وأنا الضوء وأنا وحجر وياري دقيست دولة وحكو شقيرسات هلك دالك مراككا أجوجنو يوروب أجوجنو دولة إيكورسو هشيسك يسحيدا إيجش يهور أوشي وضع وحي وحكا خلدمنا بارلمانك دبلو وعليا وحلو راضيا إن ريبليسمنت وحلدها لغو سمية لكن دولة إسكما كرتسكتك وردقيست الصومالي عوانها النقرنا والصومالية ماتها سكون حياعنا وركوي توغادا ماتا ويفشل بين وينو وكرين ماتا نيات جبنا سود هذا فضل سيقود بيا سيشر قرية إليكو باسك ما تعلقوا وكرن وحو ما أنت وكذا قرية إكسكيوس وكلها ودوي كيف على الحري إكسكيوس وكذا قرية العقبة لله ارتاقنا مقرر ساي لله ارتاقنا بارلمان كورتيس وبو يبو باوية أسأل العقد رأس الشيء كسوق أنا عربتي أنري وحنا وحياة بدن سكر صارويان وحري وحياة بدن أو سكر صارن oo loogu talagalay in dawladdanada lagu dumiyo weeyaan dhageysta dawladdanada in lagu dumiyo wax loogu talagalay weeyaan carabtii aan ka reeynayn dhahnay dhaxdhaxaad baan nahay iyo dawladda shisheeye oo cadaawad inoo hay ayaa raba dawladdanada inay fashiliyaan war dawladdan shaqadeeda hal loo daayo وردولة الشقة هاللودة شعب كبرلمان كصوماليو ما أنت أنا ودقبلوه إيو الصومالي محمد مول البجوك الدولة دي تاجر سنتها أفرنين وشات قبيل وضته وميلها نوردش ورشال يضرها تودركيسين مظاهرات بلايا الواقي ودوا عسيرو والن بميلها اسكوريجي يدركتين دوا عسيرو والن يا ميلها اسكوريجي نجيست
والشعب كصومالي دولة دولة تاجر سيد شعب كصومالي رئيس الوزراء هذا قرب تاجر والشعب كصومالي مدحوينه هذا قرب تاجر والشعب كصومالي دولة دولة قرب تاجر دولة دولة أي قرب تاجر ورمات أنا سوالية تصالح إذا النقد قبيل والله وبالله والله هو كسر دال دقيس أريك لا إذا تصيا فيري ما هالثلاث ماشى كلو دجال كودا إذا تصيا سوفي عن أو وناكسن بالقطة ولا سوفي عن وناكسن وفي عن أو مسكحينة بالقطة ولا دقيست مقالة دي مركز عدلوية شعب كنا على ميلة هذين منقان نبى نحو ريقي يقولي وط دقيست دقيست الماذا الريال وسومالي محمد باناي الماذا الريال ودولة النذا وانا خايمين تسوق وتيه هلا دا وحو دولة النذا أرود الروحويا مساكين تسوماليين الظلمن مركل لقوا بابئني يا دولة النذا يا لوجو سهر جدا ما أسال عكو بحني قرش هوس تكودو والله وبالله وتالله والله وبالله وتالله سومالي ما أنت قبيلك يا دولة وحو البكوي سود وهذا فضل دولة يا قبيلك دولة كوين ورما تاريخ وتصالح أنا دي النقطة قبيل كي وكتك يعني إيش بكوري وحي اللي يقول ترى 4.5 ولا إيش يعني لكن الدولة دي ده تاجرس الدولة دي اللي وحقبته أي شقيسه هو مركنته وتوجد حرام جاه قرقة وتم جاه مركو مساكين تبجيله كريني شيء شو ما كريني شيء قريه هذا دعاية دليل إلا سوق بتوع محكمة للصوت دقيست محكمة للصوت ومقرر ساي شرعي قال له حسابتهم ومقرر ساي ودك أنا كلا ضمبين النظام وإماده بوشين حقونا جيريا ورشاتي قبيل حقونا جيريا ورشاتي قبيل حقي أيونا جيريا إذا كيد ويتيريا وراني قوم مالي دويتان بريرة هيك عدستي رطان سومالي وشيء وحانري أنا قوم موادين سوماليات باناي قبيل راعي مايو شخص راعي مايو لكن دولة ديدا أيان كود ضبط لمنايا أو ميلان كأذي ملك ورسومالية وانا لتشكيلنا يا عدو الدولة النذا إنه الدمية حجابو إنه وضع عدو مركو دولة النذا مركو الدمية حجابو إنه وضع مسبارة ربنا ندقنا مسبارو أيانو بهنا وامية ورمهويو الصومالية إلا الدلانو بهنا وامية ورمات الرئيس الوزراء حكومة هو قامنا يا خير أنا قوي ما يقان أسنا أنا ما قانو شخصيا وما قال لك والرئيس الوزراء دقيست والله أنا باسونالي أقرنين أسأل ويسي إقرنين لكن ومواد الصوماليات والرئيس الوزراء أهويان waxaan ku taageerana shaqo wanaaga uu wadankayga keenay way fadlan soo dhawaada si gudbiya si shargareeya idinko mahsan cadawga uu nagu raaxaysanaya cadawga dawladdu rabo inuu inaga dumiyo cadawga wuxuu rabaa shaatiyo badan inoo soo xirto cadawga inuu na wareeriyo rabaa kulma meel inaga soo galo baarlamaanka naga aan taageerno waxaan ku taageeraynana ma aha inay mooshin ay keenaan oo dawladdanada rudaad ma aha waxaan ku taageeraynaa inay dawladdanada la xisaabtamaan dhageysta fadlan soo dhawaada سي شركة دولة إلى الله حساب تمان إدهان ميسكاي ماذا محيسان كل عضي محيسان كتمت هوش محي نوع كتمت إلى إدهان أيا كتاجرنا كتاجر منه ما صلاة يتوكلوا هوست وقوته إلى دولة النذا دبيان إلى دولة النذا العكو بحيان إلى دولة النذا أفكر لك أوجليان والله كتاجر منه إذا جيست وادقبلو ما تاني ويقول فرطة والرتلكو يو أنا إذا جيست أنا وحبه يقول رينا أنا قد دولة إذا تاجر سناي مواطن سوماليات بارهاي إذا كي سياسيين كله كله جدّو ملو السعودية الجرين مقرر ساي أنا قد حتى ربنا خد كي قلب بحار ربان إذا ما تاجر سنة إذا ما صار السعودية قارن كي جانا كل مريا ورما تاريخ إرع والله وبالله وطلع دولة هذا صرع إذا جيست ما أنت أنا قد الصرع والدولة هذا الرع وشعب كاجا وهيلي والله ما نبي تاريخ النول بحوس الدوتا مالين بي تاريخ نول بحوس الدوتا
dowladdeeda inaan dumiyo diyaaru mihi dowladdeeda inaan ceeb ka sheego diyaaru mihi dowladdeeda khaa'inul waddanku inaan la dagaalamay anna la dagaalamo waajib bay ku tahay waa dastuuri wey dastuurkaygaa ii sheegay dastuurkaygaa wuxuu leeyahay khaa'inul waddanka la dagaalan oo ma garanaysaa adin iyo afba waxaad kula dagaalami kartid la dagaalan ama countryman dhegaysta countryman baan ahay waddankayga waa jeclahay caasimaddeeda weligay ma arkinay dhegaysta ninkaa idinla hadlayo ee maalin walba duqbulow halkan idiin soo istaago caasimadda waddanka soomaaliya wallaahi oo bilaahi tallahi inaanay indha saarin noloshayda dhegaysta caasimadda ummadda soomaaliyeed weligay indhaha ma saarin waxaan arkay washington waxaan arkay london waxaan arkay nairobi waxaan arkay istanbul waxaan arkay caasimada wiilal kaleetaan arkay wallaahi oo bilaahi tallahi laakiin caasimadda aniga aan u dhashay ee caasimadayda ee xamar ee waddankayga magaalo madaxdiisa weligay ma arkin dhegaysta waxa ii diidanna qabiil weeyaan waxa ii diidan wallaahi oo bilaahi oo tallahi qabiil weeyaan dhegaysta waxa ii diidan qabiil weeyaan waxa iga soo hor istaagaya caasimadayda ii diida inaan arko qori weeyaan iyo dagaal iyo isbaaro iyo kala dambeyn la'aana keentay war aniga keligee mehe muwaadiniin kaloo fara badan oo soomaaliyeed baa jira dhegaysta generationkayga markaan annagoo yaryaro dhowr sano jir ayuu dagaalkii qarxay waa la kala cararay war daaroodka boodharka dhaafiya war idoorka hargeysa geeya war hawiyaha ha qabsado xamar ha qabsado howlo noocaasay dhacday dadkiibaa kala aamin baxay waa la kala cararay dad qurbahay galeen qaxootiyaday galeen waa carruur intaasoo milyan oo soomaaliya caasimadooda aan arkin baa jirta dhegaysta anigu ka mid baan ahay waxa ku taageeraya dawladeydana waxaan rabaa adduunyadan intaanan ka tagin oo dhiman ina caasimadii hooyaday ee dalka Soomaaliya ee dhulkayga hooyo inaan maalin indhaha saaro oo dhaho wallahi waa tara capital city-ga aan adduunyada ku lahaa dhageyst haddaan dhinto soo noqon maayo haddaan dhimatid soo noqon maysid war maanta caasimadaada waxa ku geyn kara waa dawladdaada weeyaan intaan ku taageerayna intaa weeyaan war in adeerkay madaxweyne kama ah war abtigay madaxweyne kama ah war khayray ma yaqaan war farmaajo ma yaqaan waa muwaadiniin Soomaaliyeed weeyaan inta aan ku taageerayo ee macnaha juhud iyo waqti u guliyeen ugu dhawaaqay habeen iyo maalin qabiil ma ah waxaan u taageeraya waxa weeyaan inay waddankayga kala dambe keenaan institution-ka la dhiso waddanka uu hagaago oo xor la noqdo oo booliskanaga uu shaqeeyo oo militariga uu shaqeeyo oo intaan hal maalin qurbahan iyo meelahan aan joogo aan ka tago caasimadayda aan lagu hadhigo maanta miyaa tee kara waa karaay maalinkan February 8 farmaajo Soomaali israacday oo way isdaysan lahaa oo Soomaali way hagaagtan lahaa ee caasimadda lagu soo wada qulqulay hadar ma salaad ba maanta qori la hortaa kuma noqon karo uu dilayaa ka warram maanta ma salaad ba qabiil ii bilaabay shaatiga qabiilku ii soo xirtay dawladdeedii buu burburin rabaa shacabkii Soomaaliyeed ba kala cararaya cabsidii waaga horata waddankayga iyo capital city-ga fadlan soo dhawaada sii sheekay yaan maanta uga cararaya sababtoo maanta marka taga caasimadda waa lagu toogan baan isleeyahay laakiin Soomaali haday hagaagto oo dawladdanada aan taageerno oo qabiilka laga cararo oo qabiilka dhulka la geliyo oo nin walba waddankiisa uu taageero caasimadeeda sida aan Washington DC u dhax taaganahay ee aan London u dhax taaganahay ee Nairobi u dhax taaganahay soo caasimadeeda ma tagi lahayn war maxaa caasimadaha kala xor iiga dhigay inaan tago oo taydana tagi waay maxaa ka dhigay inaa caasimada adduunyada kala aan tago oo taydi aniga aan u dhashay aan tagi waay maxaa keen waxa keenaya waa mahad salaadow waa fashilan tahay dawladda faraha ka qaad waxa weeyaan adigiiba siyaasadda isku fashiliyay adoo wasiir Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed oo waliga garab taagnan oo wasiirkayga oo aniga saatiga wasiirnimo igu matalaya adaa yiri qabiil bar meesha ku tagay maanta dawladda barabtay inaad dudumisid waxa uu duduminaysidna ma taqaanid aniga dhageys war Soomaaliya haniyad jubna dawladdanada way shaqeynaysaa beentiya barbagaadhadana yeeli mayno beenaalayaal weeyaan baarlamaanka kuwa ku jira afarta xabee caad qaatayaasha ee xiiqsan waa la soo qabanaya wala la xisaabtamaya dhagaxna waan ku dili doonaa insha Allah maanta way naga ooysiinayaan maanta walwal bay nagu rudeen maanta waxa weeyaa walbahaar bay nagu rudeen fadlan soo dhawaada sii gudbiyo sii shargalay idinko maas walwal iyo walbahaar iyo magareesaay wadna xanuun ay wallahi wabillaah tala nagu rudeen war carruurta dhalnay maalul waxaan leenahay waddankii nabad buu noqday waddankan aadayna iyo magareesaay grandfather kaay meeshuu ka yimid baan ku noqonaynaa baan carruurtana ku dhahnaa marka carruurtanada rajada aan gelin iyo nagu soo baxaya afbijoole ayaa ugu soo baxay waxa ugu soo baxaya mahad salaad oo wuxuu u socdiyo daruhu rabaa gareen war maanta markuu dawladdanada rudo
ودولدنada la dagaalamo ودولدنada dhulka la galo oo ma garanaysaa dawladnimada baabiyo maxaa u soconaa soo isbaar ma dhageysta marka Soomaaliya dhageysta waxa moogdeen maanta runta idii sheegay anigu runta waa idii qarxinaya kuwa buhaada wado ee beenta wado ee lagu qaraabanayo arrin kalena halkan baa idin ka tusaya insha Allah haduu la yiraahdo qoblow been ma sheego waa wadani Soomaaliyeed qabiilkii qaranka ila weyn anigu sababtan qarankaygu u dhaganahay يدي شيء ما تسياسة الرجع يكون فورت يكون تاجن تهاي دور كنوع كرأه وسؤال هذا إثيوبيا الجوية سؤال هذا كي يدقن واحد بعته ما قبان رجيست سؤال هذا كي يدقن واحد بعته ما قبان وده كودي تجيه هذا بردوا عليه دورتين برلمان كودي دورتان كي لما عاملان كي سؤال أنا حرقف فربضن مجرته dhibaatada ugu badan ee Soomaalidana saameeyso waa Soomaalida Itoobiya degan Soomaalida Itoobiya degan siyaasadooda waxa weeyaan way iska qasan tahay qofkii dhax galana aad buu ugu wareeriyaa wadankanaga Soomaaliya Great Somali waxa burburiyana waa siyaasadda Soomaalida Itoobiya weeyaan hadda ka hor sababta Soomaaliya oo nabad noqotay oo hor u socotay oo ma garanaysaa wadadii dimuqraadiyadda saartay lugta saartay ya dagaal dhacay sabab dawladdanada way burburtay isku soo duub meelo badan bay soo mareysay jabhadan hadda ona lif la yiraahdo iyo raggan deegaanka Soomaalida Itoobiya hadda maamulo Cabdi Maxamuud Cumar uu hogaamiyo waabay ona liftan hadda door ku jirto hogaamin jirtay deegaanka madaxweynaha xisbina weey sabab dhacay waagaasi way ku qanacsanaayeen in Itoobiyaanka iyo meelaha la shaqeystaan hooshooda wataan kadib siyaasad kale iska dhacday barnaamijkaas ay galeen halgan bay bilaabeen waa la taageeray aad baa loo taageeray way soo socotay inta kama hadli jiray siyaasadooda ayaga iyo Itoobiya isku mashquulsanaa hooshooda dhinacaas ahayd hadda arrintan waxa inagu soo kiciyay keenay waxa weeyaan nimanka Soomaalida Itoobiya degan Itoobiya iyo heshiis fiican la galeen beeraha loo qoday ceelal baa loo soo saaray iskuul loo sameeyay hoggaankiina qabsada lagu yiri حزبيدنا سميستها لويري إنك استوى إثيوبيا ماشي إسكت هاي إثيوبيا اللي يرهدو سميستها لويري جبهتنا وإسكت قال لما إسكت سعودي أردنا الدولة دي فدرال كلا قصدي يدب إنه وصل كويس حسن الشيخ محمود حفظ الله هدوس جيجت الهين وسير دي سهشيس كان يسوق للهين هوشنا يشعون لهين وحاول الدولة دي ندى مات ويشعون لهين باش أنا مالك كتب من دمنا إسكت صوته برك مات فيديو بان هلاي أريد الدعوة سينيا أون آد وقطوخ قلبي نجح أرجو إن لو دودو مواطن الصوماليات أو لو تقالمو أو مقرر ساي إثيوبيا أيسن توجر قرينين أو مقرر ساي حر ونقضو أنا وأنا أمسنا لكن سياسة ده كله كتب بس ما هالصلاة يقولون كله تنع كلته وكسر جدا وحننتوسي مقالة نيروبي شر لو قبطي وقولون هون لفتي قبطي badbaadinta ururka ONLF ayaa shir ay ku qabteen magaalada Nairobi waxa ay uga hadleen in ay sameynayaan xabad joojin waxa ay sidoo kale ay qaybaha kale ugu baaqeen inay sidoo kale iyaguna ay nabad qaataan waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha ugu dambeyntiina waxa halkaas laga akhriyay bayaanka kooban 6 qodob go'aanka golo wuxuu ahaa inaan dib u soo noolayno rajadii ummadda fiican loo dhageysto fiidiyowga ilmaada reeyalo inay tashato iyadoo ay hada ka wada hadasho ujeedkii hadafkeena intaas bay yahay welina wadadii waan haynaa waan wadaynaa shaqaduna markay socotay marba intii la isugu waday meeshaan marayna iyo meesheen u soconay iyo yoolkeenu gaarnay in la isugu yimaado laga wada hadlayo waa qayb shaqada waa magaalada Nairobi ujeedka aan leenahay inaan Ilaahay ka rajeynayno waxaan rajeynaynaa inaynu heli doono xalkii ummadeena maanta ka maqnaa iyo hadaamadii godkii dheer ee ku dhacday inaan dib uga soo kaban doono oo aamsanayo ummaddu waa iska wax walba ka maqan in la gaari doono waxaan rabnaa marka inaan runtii waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay isweydiiyaan golaha wada tashigu muxuu yahay xaguu ka yimid golaha wada tashiga iyo badbaadada Soomaalida ogaadeeniya sida laga soo hadlay markii koox qurba jooga oo aan duruufta shacabka ogaadeeniya ka warhaynin kuna ciyaaray tamartii iyo xoogii iyo aqligii iyo dhiigkii shacabka Soomaalida ogaadeeniya u adeegsaday ganacsi ay iyagu leeyihiin ka dhigtay markii ay kooxdaasi soo baxday ee aan in badan isku daynay inaan ururka gudihiisa ku xalino khilaafka iyo barnaamijka waxa ay suroobi weyday
waxaa noo soo baxday markaa in ugu dambeyntiina ay go'aan qaateen in ay axmaaro barnaamijka waxaan islaahayn waa koox dhibaatada shacabka Soomaalida ogaadeenaya u samaysan markaad runta qiimayso xilligii anoon taariikhda iyo waqtiga ku dheeraanayn waxaad ku garan kartaa xilligii ururka ONLF la aasaasay marxaladii lagu ku soo hagaagay waxay ahayd marxalad ururka WSLF gudaha ogaadeenaya ka dagaalamay uu sii jiray markii la aasaasay dawladda Soomaaliya ururka ma ogolayn in dawladda Itoobiya xilliga ma sha Allah ونيروبي ومقالة نيروبي دلك كينيا ويان وكذا وخي داس مركا أنا واحد يقول فيه إن قارن كيجا ما سلالو رجب باكاد بي وهالله وكفشلي whatever وحي أكعيني يصير بعد يكوت الله دقيشت نيكان كله ديان كهست عيرشة واقع هذا هذا عبد محمود عمر اللي يراده أصلا جون دي سويان أوكي قصة هذا ووررسنتها nin walba oo rabo siyaasadda Soomaaliya inuu arqaladeeyo oo kiciyo sida mahad salaad oo kaleeto hawshan iyo hawlahan Itoobiya iyo faraha inoo geliya Soomaaliya dhageysta hawshaasi aan u deyno Itoobiya iyo deegaanka Soomaalida iyo qulooyinka ay ka dhaxayso arintaayada dhageysta aan u deyno oo faraha uga qaadno hawshooda ha wataan ama ha halgabaan ama ha dagaalamaan ama ha heshiyan inkastoo hadda xabad joojin ay ku dhawaaqeen oo magaranaysaa xabad dambe ay rudin ayaga u taala aan ka socon muwaadiniinta Soomaaliyeedu dhageysta maanta waxaan lagu kicinaya waa hawshan weeyaan aan ka socono oo dawladdanada aan taageerno siyaasadda dawladda Soomaaliya aynu taageerno dhageysta war Kenya Soomaalida degan horbay u socotay Kenya loogama daba hadlo jabhada male ismad bursadaan siyaasadda Kenya la qabsadeen iskuuladooda xor way hawshooda may wataan kuwa Itoobiya saasoo kale maxaawi maan u deyn oo faraha ka qaadno hadday isdagaalayaan hadday isdeynayaan hadday wada joogayaan meesha kaliya mar walba shanta Soomaali waa la aaminsan qof walba Soomaali wuu aaminsan Djibouti lagaba hadlo Ismaaciil Cumar Geele reerkiisa iska haysto Ismaaciil Cumar Geele iyo reerkiisa iska haysto haloo day laakiin shanta Soomaali bay ka mid yihiin 5 حدكت جيس كشنت كمدي لكن سياسات ضوض أرمها جودها لا فرق لي كينيا سواليدا دقنا NFD جوال كوين بيدقيه سياسات ضوض لا فرق لي وهورو إلى ريلا ودينجا إلى آدم بردوا عليه هوش وضوتان دقيست الله أكبر والله بالله حقك أذامية قبيل إلى قرن كيلوين دقيست ورسامين توقو بدر Soomaaliya amaanta la dagilana hayo kuwaalanayo kuwareernay nawaalay haddaan Soomaalinahay waa dhinacaan reserve area weeyaan war mandayna ayagana sidaan Djibouti u deynay aan Kenyana u deynay mandayno Soomaaliya faraha ka qaad muxuu ma salaad annaga siyaasadda inoogu kacsanaya muxuu ma salaad annagu wadan iskaga ka dhigaya Cabdikariim Guleed muxuu wadan iskaga ka dhigaya war Soomaaliya ka soo leexdo كسوليحدا واندينو ومداسي هلو دايو مدحوينهودا iyo Etoobiyaankooda ku qanacsayn faraha looga qaada anigu way ga talawiyaan wallahi wa billahi wa tallahi mana dhihi karno Etoobiyaan nacamnahay ma dhihi karno Soomaali baan nahay waxaan Ilaahay geeska Afrika inagu wada abuuray dhageyst Cabdikariim qalbi dhagax hawshiisa way ka duwan tahay siyaasadda hadda anigu idin sheegay laakiin siyaasaddaasi ayaa rabtay inay anagu nagu kacsadaan ay nagu duushadaan oo ma salaad hawshiisiyo magaranaysaa mooshikiisa uu nagu wato u raba anigu warkaygu waa cadiya Itoobiya Soomaali bay inaga daga gobolka ugu weyn ba ku leenahay hal loo daayo arrimahooda entire affairkooda hal loo dhaafo hal la daayo anigu taasaan qabaa sida Kenya loo daayay sida Djibouti loo daayay hal loo daayo maalikay noo soo noqdaan anagu aan aragno dhageysta maalinka ay noo soo noqdaan anagu aan aragno arrimahooda hal loo daayo anagu jamhuuriyaddanada aan wadana Soomaaliya marka dhageysta hadda waxa la isku dhaxwado ee la isku dhax wareerinayo ee dadkoo dhan isku dhaxyaaceen waxa weeyaan waa hawshan xaqan weeyaan dhageysta wallahi oo billahi wa tallahi beena ma hawsha dhinacan ayaa naga wareerisay because hawsha dhinacan haddaan anagu soo xirno oo loo daayo hawshooda dhinacan Itoobiya Soomaalida degan loo daayo anagu taanada ma salaad iyo kuwa dhulka jijibinaya kuwa marka qabsaday iyo kuwa shabeelaha ku soo duulay wallahi waa qabsan leh anigu arintan suweydiyo taa weeyaan arinta fadla soo dhawaasi arinta aniga suweydiyo waxa weeyaan war kuwa Kenya degan ba waan deynay arintooda ma galno oo magaranaysaa qiiro jabaankooda dhinacan ma ina soo gaarto kuwa Djibouti ina soo gaarto
warkuwa kaliya maxay victim u yihiin all the time isweydiye why all the time they are victim why all the time they are victim aniga soo hadlayo wala soo weeraray waxa la daba qoodi baa tahay hadaan oo fadho ki kale to nabadiid baa taa u baataa leeyahay waa ku dawaqay marka aniga dhageysto wallahi idinkuna sidoo kale tiin waa ku dawaqay waa ku wareeray hadaan Kenya aadan baradu caalamaanta iyo Kenya iyo Djibouti Djibouti aan ka hor imaado ama aan amaano ama Kenya aan ka hor imaado ama aan amaano cidna macnaha magac ii bixin mayso cidna magac ii bixin mayso cidna la iraadsan mayso laakiin hawshan kaleeto hawshan dhinacan anigu muwaadinimadeeda ku adkeysanaya wallahi wa billahi ta'ala muwaadinimadeeda ayaa ku adkeysanaya hawshiina Soomaaliya kala dhaxbaxa la taga Reserve iyo deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ee uu hogaamiyo Cabdi Maxamuud Cumar uu hogaamiyo Cabdi Maxamuud Cumar uu hogaamiyo la taga Ethiopianimadiina qaata waxba qalbi dhagax sawirkiisa ku istaagina waxba qalbi dhagax sawirkiisa qaariyaysa soo qaadan waana dawqisho wallahi billahi ta'ala waxaan dawladayda u taageerayo madaxii baa i wareeray wallahi wa billahi ta'ala waa soo hadla cabaar baa soo hadlay war shalayto hooyooyin Soomaaliyeed oo mudaharaadayo oo dabacaseer u hor ordayo qalbi dhagax sawirkiisa heestaan arkay dhageyst hadalkayga si fiican u faham waan u riyaaqay waxaan dhahay maasha Allah calanka Soomaaliya wataan calankoodana ha wataan qalbi dhagaxna macnaha Soomaaliya nagama aflagaadeenayaan madaxdanada waxba ka meesha ha iska wataan kuwa kale Soomaali ah oo Soomaali Maxamed ah oo iska laan dheerayaalo hadar isla dhaantadii ay ku ciyaarayo oo sawirkii qalbi dhagax ku istaagsan baar waa ku wareeray waa ku dawaqay warweyna wareeriyeen hawshiina wata marka sawiradiina ku istaaga calamadiina wata idinka idinta laakiin calanka buluuga noo daaya anagu aan nabad helno ee hor u socono wadankanaga ha noo hagaago idinka meeshiina ku ekaada marka meeshiina ku ekaada hawshiina wata idinka idinta la ki taageeraa ka helaysa idinka laakiin arinta calankanaga yaa lagu soo dawaqin anigu iga talo weeyaan waa fikirkayga kaligay aniga aan qabo weeyaan fikirka kaliya anoo duqburow aan qabo weeyaan marka muwaadiniinta Soomaaliyeed anigu si fiican dhageysta baashari iyo idin wareerin 100 sano soo socota ka baxa dawladana aan taageerno madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo cid igu nacayso iyo cid igu taageerayso iyo cid igu hor imaanayso madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muqaddas weeyaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muqaddas weeyaan ninka Soomaaliyeed ee Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax waa laga gardaraya kuma dooday dhageysta kuma doodayo ehelkiisa iyo reerkiisa iyo dumarkiisa kuma doodaya kala saara anigu waxaan rabaa inaan wax fahantaan fadlan soo dhawaada si sheer gareey si gudbay kuma doodayo onalif kuwa u hadlayba onalif ka dhigay reerkiisa ilaa hadda anigu waxa u taageerayo oo aad aan ula dhacsanahay ninka inuu xorriyadiisu u helo waxa weeyaan reerkiisa iyo ehelkiisu ma dhahaan mana ka maqlin jabhadda xoreynta wadanigu ka tirsanaa wali kama maqlin waxa kaliya ka maqlo waa raggan kala jabsanay hadda qaarna kula xabad doojin ma ku dhawaaqnay qaarna kula xabad iyo dagaal baa socdo ee isku soo qaar dhinaca kale kuwa u baan ka maqlaanay oo dhahayo Cabdikariin qalbi dhagax waa jabhadda laakiin reerkiisa iyo ehelkiisa waxay ku doodayaan oo ku dagaalamayaan inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu soo shaqeeyo bal isqabadsiya idinka arinta ayada sida anigu maskaxda yara xaruntay miyay yara xanuuntay idin kara dhageysta reerka Cabdikariin Sheekh Muuse uu ka dhashay xaaskiisa iyo carruurtiisu waxay ku doodayaan inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo mudug ku dhashay oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsanaa oo soo dagaalamay wali afkooda laga ma hayo linki dhinacan jabhadahan iyo onaliftan iyo howlaha kale Ethiopia iyo Reserve Area iyo DDSI siyaasadda ka socota wali lugta loo mas'uul anigu taas ku taageeray marka dhageysto taas ku taageeray oo niri muwaadinka Soomaaliyeed xorriyadiisu waa inuu helaa laakiin kuwa hadda caalamada kala wato iyo kuwa siyaasadaha kala wato anigu muwaadin Soomaaliyeed ba idin ma taageersan calankiina ma taageersan siyaasaddiina kale tay wadataan dadka arabtiin inaad ma garanaysaa qeyr jabaana ku gulisaan ma taageersan waana ka soo horjeeda anigu aad ii dhageysta ummadan Reserve Area degan ee ceelasha biyaha ee beeraha loo qoday ayada u taala ha loo daayo hadda idinka ismursanaysaana gala borderka dhinaca kale u dhaafa idinka idin taala
laakiin anigu muwaadin Soomaaliyeed oo Soomaali sax ah oo Soomaali ah oo Soomaalinimada ku dhimanayo oo weligii meel looga leexanin oo weligiiba dawladdiisa aan lagu diri doonin oo weligii dawladdiida noqon doonin oo weligii allihii dawladdiisa ku daba dhiman doonaan magacyo ku bixinayaan hadda dhageysta waxbay soo qorayaan waxay ku leeyihiin daba dhilif baad tahay daba qoodhi baad tahay u baad tahay nooca ba waxyaaba noocaas ku bixinayaan borderka dhinaca kale aad idinkeedii taal laakiin anigu muwaadin Soomaaliyeed oo xaq sheegayo runtana ku aadaamayo qalbi dhagaxna anigu maalinka reerkiisa aan ka maqlay inuu oon alifaha asna borderka dhaafinaya maalinka reerkiisa ka maqlo iyo qoysaskiisa anigu siyaasadda raggan wata ee qiira Japaanka meelaha la wareegayo ee calaamada wato u dhageysan maayo wallahi inaan u dhageysanayn dhageysta maalinka laakiin reerkiisii ehelkiisa aan ka maqlo inuu onalif ka mid aha asay u taalaan siyaasadda ma gali karo laakiin hooyadii iyo uu qabay iyo caruurtiisii anigu waxaan ka maqlay oo dhagahayga ay ku dhaceen oon xaqiijiyay inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka tirsana taasaana ugu doodaya oo ku taageersanay dhageyso taasaa ugu doodaya oo ku taageersan laakiin maalinku siyaasad link la noqdo si u taalaa si dawladaha kale laakiin anigu ka noqon maayo go'aankayga ah inuu qalbi dhagax muwaadin Soomaaliyeed yahay because reerkiisa ka xaqiijinay taasi wata laakiin siyaasadan kale saaxiibta anigu runta sheegaya dhageysta war Kenya Soomaali baa degan isla reerkan asaga ah xaggan degan ku badan siyaasaddiisa faraha looga qaaday cidna kuma kaas way tashadeen rag wax bartay baa gacanta ku hay rag wax bartay oo wallahi laan dheerayaalo ma garanaysaa laan dheerayaal ilaahay ka dhigayo ad kuuyada iyo jalwada wax la qaybsan karo oo ma garanaysaa hoggaanka saddexaad iyo ilaahay ka dhaliyay Soomaaliya siyaasadeedii howlaheedii cidna ma wareerayso cid wadato oo siyaasad ku kacsanayso qolooyinkan Kenya degan wali ma arkin anigu maskaxdiina maanta waan kicinaya waan dul dagayaa aad baan u dul dagayaa dhageysta qolooyinkan shanta Soomaaliyeed ka mid ah Kenya degan siyaasadooda tuug iyo xaraami Soomaaliya joogo oo ku qaraabta wali ma arkin inta cimrigeega jir wali ma arkin ma salaado aadan barado caali iyo faarax macallin iyo wato oo wala wareegayo oo Kenya iyo hawsheeda iyo NFD ku jira ma arkin aniga way ka madax banaan dhageysta carruurtooda wax baraan carruurtooda hor u socoto carruurtooda ceelasha iyo biyaha ka dhaansada carruurtooda jaamacada ka baxay Kenya jaamacada ugu sareeya ka dhigtaan Soomaalina way yihiin Soomaalinimada ku faanaan waa taageersanahay anoo duqbuloona waxa weeyaan juubane Djibouti shanta Soomaaliyeed bay ka mid tahay Djibouti shanta Soomaaliyeed bay ka mid tahay Djibouti shanta Soomaaliyeed bay ka mid tahay baasaboorkeeda shaqeeya umadeeda iskuul bay dhigataa umadeeda waxbarasho aada ceelasha biyo kala soo baxda inkastoo dictator oo haysto anigu taageersaneen laakiin shacabka markaan duulinayo waa shacab Soomaaliyeed oo shanta Soomaaliyeed ka mid ah siyaasi Soomaaliyeed oo ma had salaad oo kale to intuu soo kaxay siyaasad ku duushada ma arkin war umadan faraha badan ee gaajadu dishay xabadu dishay baabacday ahmaara iyo wax walba iskugu tagtay maxaa siyaasadda loogu kacsanaya maxaa siyaasadda mid walba oo wareeraba uu Itoobiya intuu u taga siyaasadda dhinaca dadka u wareeraya Onalif baan taageeraya Cabdiilay baan taageeraya IDDS baan taageeraya oo bayna la hortaagay maxamed salaad jaamac wuxuu ku leeyahay daba dhilif war daba dhilif mii runta umada u sheegaya oo been iyo siyaasad waalan baa wareerisay muwaadin Soomaaliyeed baan runta ka baqin dawladdiisa taageersan muqaddas weeyaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muqaddas weeyaan ra'iisul wasaare Khayr daba dhilifka iyo kuwa caada qaatayaasha ee raba dawladdanada inay buriyaan ana ka hor imaanay dhagax baan idin ku dilaya been ma dhagax baan idin ku dilaya fadlan soo dhawaad si sheer garay umada deegaanka Soomaalida Itoobiya degan war Itoobiya abasiiniya waa isnacamna laakiin reality-ga cidna ka carar karto cid ka fogaa karto wallahi billaah tala inay sijir war shanta gobol ka jirto shanta gobol Itoobiya ka jirto gobol ku weyn Soomaali baa iskale DDS dawladda Soomaalida Itoobiya ogaadeenaya bagaraysa ogaadeenaya gobolka la dhaho ee diyaaradda markaa saaran tahay ee Yurub ka duushid ee Afrika iyo Kenya Itoobiya dul maraysid diyaaradda ogaadeenaya ku soo qoraysa DDS dawladda Soomaalida Itoobiya war shacabka Soomaaliyeed annagu ehelka dhaga ma faraha ka qaadam wuxuu tuug walba oo caad qaato oo siyaasadda ku wareer wuxuu dadkan u wareeriyay wuxuu dadkan duurka u geliyaa why they not going to be Djibouti why they not going to be Soomaalida Kenya the garoklet that's a real question everybody inuu isweydiyo loo baahaya war hooyooyinka way rafaadeen carruurta way dhinteen war kaaleete wal dad bay soo weerar dooro ku dhilo daba qoodi baad timogto mi daba qoodi laakiin I'm telling you the truth I'm telling you the reality why mahad salaad anigu igu kacsanaya hooyooyinka Soomaaliyeed ee reserve area dawladda deegaanka ama ogaadeenaya degan maxaa siyaasadooda mar walba loo kacsanaya
حلو بابعينيا توغان غريهودي waa kuna London iyo Mareykan bay loo dagay London iyo Mareykan bay dagay whoever Abdul filu dagay sardar bu jigjiga ka dagay laakiin hooyooyinka Soomaaliyeed ee boqolka sano dagaal ku soo socday faraha laga qaado hala daayo ha korsadaan carruurtooda iskuulaha loo dhiso war dadka waa looga xanaya qabiilka ha dhaco warunta wallahi billahi tallah war wada waa laga xanaya wadan ma salaad iyo kuwa wararsan ba marulba siyaasadda ku kacsanay anigu runta sheegaya kan leexan maayo wallahi oo billahi tallah waa qiireysanahay waa dawladeysanahay nabadiidkan ka soo horjeeda war mar walba mucaarad baan noqday anigu mar walba mucaarad baan noqonaysaa adigu mar walba taw macalad ibalaa wada fikda maat meela ma wareegaysa war meesha ka tag hooyooyinkan ha loo hiiliyo iska daa waxaan ka bax ma salaad carruurtiisii reerkiisa korayaan adna carruurtaada ha koraan waa reality-ga dhabta carruurtaada biyaha la soo baxaan ليش إثيوبيا دارتها قادن لكن ليش عليك وطالع إذا زبارة جيبوتي كلا نقوم قرر سايا كينيا كلا تنق وعرضها قصور جدا يسكول هذا وعرضها ودي دنتا إلى ما قرر سوح برتان حالي يوريرس أنا صومالي واي يوريرس محاكل بميل يجسو جلسة أنا صومالي واي يوريرس كل بميل يجسو جلسة ونانيك قدوخ كوا تاجر سري وكودي دراي ولا جينا كتاجر ماي دقيقة سمر دولة الصومالية مقدس ويان ميلنا وقال لي حن ماي قبيل كهدع وراني قد وضيت دليرت الصومالية دو واحد دولة وتاجيري ودك رنت وقول شيء وحاول إن بدن بسوق خلطرة إن بدن بس كقيرة جبانة إن بدن بميلب أنا معنا وحنا كين أن 27 years أنت تجربه واسكت بالسعودية قولوا كني وحيابان اسكت سياستنا كل بيل هذه سو كصورة دقيست المركز أنا وعاصمة ذي الولي جاي مارك عاصمة أمضى الصوماليات المقدسة والله بالله طلع أنا الولي جاي أرك وحروبها هنا ودك الصومالي ونوضع عاصمة ذي واركو سعرت ذي أوجستو شو ودن كيجا وهرمر إيجار شو ودن كيجا وهرمر أوجارو شو ودن كنجا ومجرد عالم كأولاد الجكري وأنا الدولة دنا تاجرنا ويان عاد قاتياش وأنا سوق منا وأنا كور منا ويان دقيست معلم بمتى غيرك معلم بعني ميل متى نكره علن ما وذكره علن قبيل معلم انت ميل ليش تاج والله انا وذكر وكسو دال تكبلوق وعالم كان لما زين لو وانا اركا ام براود نقضا I have to say I'm proud to be a Somali انا قد دقيست عبار بان هلي ومد الصومالية دولدنimada wax dhaama male dowladnimada meel looga taga male ra'iisul wasaare khayre وجريا مدحوينه محمد عبد الله فرماج وجريا وينو تاجرنا كان الله يحنمنه قبيلكو هدعو أنا يقول ضبضيدا أنا وقبيل وان كتجي قرن بن هذي قبيل وان كتجي قرن بن هذي شو وهذا سي شرقرية سي قد بيدكم مثلا دولة الصومالية أنا هلا تاجره أنا ألف أنت أنا كبحين دقيست أنا ألف أنا ويدي ما تاجرسن عبد إلي يا عبد محمود عمري دول دياك الصومالية أنا وإذا ما تاجرسن مواطن الصوماليات لو ذي النبي اسكو كيميت باتين لكن وده كيجيلو هجاجات جعله أنت يرن إذن معناها أن بعيش قراعينه وأنا الريالة تقدر نبتي جيبوتي وهرمرتي كينيا وهرمرتي ومدن كلتين ديان كدقنا ههرمرتو ومدن كلتين ديان كدقنا ههرمرتو هاشقيستان عيلاشو بيها كلا صباحان عرضتو سكولها آذان أنت شو حويان مسكحة السليم كآد بوجع عشاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلب النجح نوا مواطن الصوماليات فريق قلب النجح والله ميل البجوكتين